فيديو نيكاسو ضد ديلايو ودنا يرسو مالي ديلايو لا ميك دحيسكو ديلايو فيديو غاس بدي اركي نيك صاحبكيغا waa u baqaanay I'm not happy within our area. But those we have profiled, we have to get them, whether alive or dead. That one doesn't have any compromise about it. فنانka Sharma Boy ayaa muuqaal uu soo duubay oo socday 16 daqiiqo ku ooyay muddo 3 jeer ah markii uu ka hadlayay wixii dhaxmaray isaga iyo wariyaha caanka ah ee Daahir Cabdulla Cali Sow. Sharma Boy ayaa sheegay inuu ciilay Daahir Cali Sow oo dadkii YouTube-ka ku hayay u soo diray dad dila si ay ciwaanka iyo baasweerka uga wareejiyaan. الفنان شرما بوي oo ilmada ka socoto ayaa yiri waxa ila soo hadlay Deeqir Darajo oo wiilka YouTube-ka ii hayay isagoo bistoolad madaxa looga hayo waxa uu soo wacay waxa uu igu dhahay kala dooro nafta saaxiibka Deeqir Darajo ama YouTube-kaaga waxaan ku dhahay saaxiib badbaadi naftaada ee si baasweerka. Sharma Boy ayaa sidoo kale sheegay in stresska uu dhibaatadaasi uga qaaday shil baabuur uu ku galay magaaladaasi Garowe ayna ku dhimatay gabar Soomaaliyeed xabsina loo taxaabay oo dhowr isbuuc uu jiifay xabsi markii lagu eedeeyay inuu gabadhaasi si kasa u dilay markii dambana laga qaaday mag ama diyo waxa ay u taqaanto Soomaalida. hadaladiisu dhan waxay ahaayeen kuwa dareen gooni ah wata misana markastana uu ooyayay. waxa soo wacay Deeqir Darajo soo wacay wuxuu yiri ninaga shit wuxuu yiri nina bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa. waxa iga sii daran dadka qabiilka ku taageeraya ninkaas ayuu yiri qof waxa laga soo horjeestaa markuu qabiilkaaga wax ka sheego maxaa ka oohiyay maxaa keenay in intaanoo dhan uu ooyin afka jabsado maxaa keenay in muuqaalkan uu soconayay 16 daqiiqo inta badan uu ooyayay ciil badan wajigiisa laga dareemayay. waxa uu soo hadal qaaday nin lagu magacaabo Axmed Rashiid ku haysta dhalinyaradaas oo waxa way wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo Rashiid Nuur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameey karo waxa la itaha Axmed Rashiid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo. muuqaalka kuma falanqeyn doono waxa ka dhaxeeya asaga iyo Daahir Cabdulla Cali Sow laakiin waxaynu ku falanqeyn doonaa ninka oo sheegay in loo soo adeegsaday ee ku nool dalkaasi Kenya magaalada Nairobi saaxiibkiis Deeqir Darajo loo adeegsaday. Deeqir Darajo dadka inta badan aqoonin waa ninka gacanta ku haya YouTube-yada Soomaalida inteeda badan waana ninka edit gareeya duuba heesaha Soomaalida waana ninka duuba inta badan heesaha Sharma Boy haatan wuxuu gacanta ku hayay oo maamulo ku ahaa hotelka ayraahde YouTube-ka lagu magacaabo Sharma Boy ee caanka ah. wuxuu sheegay ninkaas ku nool Nairobi in loo soo adeegsaday nin kale oo lagu magacaabo Axmed Rashiid. hadase waa kuma Axmed Rashiid. To ask Ahmed Rashid whether his team had a shoot to kill policy. But every time I asked him something sensitive, this happened. You want him to off? Yeah, okay. Camera off? Yeah. Axmed Rashiid baraha bulshada iyo Soomaalida agteeda wuxuu ka soo caanbaxay sanadihii 2016 wuxuuna aad u soo caanbaxay markii la arkay asaga oo si bareer ah laba cunug oo dhalinyaraha xaafadda Islii gaar ahaan dabaqa Sunrise wadada 10aad ugu dilaya. waana sheeko caan ah oo aad documentary-gaas aad ka heshid BBC-da iyo YouTube-ka aad ka helaysid asagoo si laba qof oo dhalinyaro si toos u tooganayo. waa nin dilaa ah laakiin dilayaashu isku darsanay waa dilaa la jecel yahay waa dilaa dadka reer Islii ay jecel yihiin waa dilaa masaajidada looga duceeyo waa dilaa ganacsatada iyo culimada iyo bulshada dhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ay jecel yihiin. Ahmed Rashid ciidankiisa amniga idin keenay markaa ilaahay baa keenay laakiin iyagu ilaahay u soo diro sabab uga dhigay. sidee ku keeneen askartii hore maxay kaga duwan yihiin? waxay kaga duwan yihiin askartii hore ma leen jirin waayo ninkan waarsanaya online lacag ka qaad maayo
laakiin ninkan si daacad ah waxaa lagu jecel yahay waa bedlaaye waxaa lagu jecel yahay wax kale maahan wuxuu ka sifeeyey xaafadaasi Islii tuugada ama dhalinyaradii loo aqoon jiray super powerka iyo kuwa ajaanibta ahaa ee dadka reer Islii nafta u galay ee dhici jiray intooda badan waxay noqdeen kuwa la dilo kuwa xabsi galo iyo kuwa la musaafiriyo awal asaga hortiis waxay ahaan jireen markii xabsi lagu xiraba waa la soo deyn jiray oo lacag ayaa laga dhiibi jiray musuqmaasuqna Kenya waa meheradooda laakiin Ahmed Rashid oo ka tirsan ciidanka booliska qaaska ah ee fuliya mishinada qaaska ah oo micnaheeda aad dareemi kartaan eragaas aan ku dhawaaqay ayaa gacanta ku dhigay xaafadda Islii asaguna inta badan diray mooryaantii ama tuugadii la dhihi jiray super power ee Soomaalidu u taqaantay faano le farika maqodna ayay tiraahdaa Soomaalidu Ahmed inta kuma ekaanin ee xaafadda ayuu wuxuu ka dhigay xaafad aad iyo aad u nabdoon dadka ayaa aad u jecel waxa uu dilay tiro wiilal Soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniba iskugu jira 3 mar ayuu qofka digniin siiyaa oo kaliya marka 3 afaraadna meedkaaga ayaa lagu arkaa goobaha ama wadooyinka xaafadaasi caruurta iskuulaadka diido ama caasiwaalideenka noqoto asaga ayaa loo keenaa si uu cabsi geliyo sidaasi ayayna u noqdaan dugsiyadooda iskuul laga bedelayo maxaan rabaa meesha aad jirtay iskuulkaas ina aad doonto ina aad doonin waa laba mid qabiil ahaan wuxuu ka soo jeedaa beesha ogaadeen ee degta koonfurta Soomaaliya iyo dalkaasi Kenya sidoo kale deeq ay raadeen ninkaasi waxa uu sida hore u soo sheegnay dil bareer oo ka fuliyay xaafadda dhowr mar waliba iyadoo kaamaradu ay hayso booliska Kenya aad ayay u jecel yihiin culimada magaalada aad ayaa loo jecel yahay bil kasta waxaa loo aruuriyaa lacag aad u fara badan oo dollarka Mareykanka ku maraan $1,000 ee ganacsatada Islii ay u aruuriyaan si uu u noolaado waxa la siiyay gaari cusub waxa uu degan yahay meel ka mid ah magaalada Nairobi waxa uu wataa 6 askari oo loo yaqaano Bangani Sigiza waxa uu ku nool yahay xaafadaasi Islii horay ayaa la iskugu dayay dhowr mar asaga in la qaarijiyo laakiin waa lagu guuleysan waayay Ahmed Rashid ninka uu ka ilmeeyay uu Sharmaboy uu sheegayo in loo soo adeegsaday waa ninkaasi waa ninka aan muuqaaladiisa The shooter, Corporal Ahmed Rashid, is still serving as head of a special police unit with a mandate to rid streets of gangsters and criminals. waxaa jirta documentary ee BBC-da ka duubtay ninkaasi oo dad leynaya oo mishina fulinaya xaafadaasi Islii waa ninka loogu jecel yahay markay imaata xaafadda Islii hortiis xaafadda Islii waxay ahayd xaafad tuugadu ku badan tahay telefoon aan ugu qaadan karin aan la socon karin cishaha iyo maqribka inta u dhaxaysa iska badaa wixii ka dambeeyay cishaha salaad subax warkeeda daa waxay ahayd markii uu imaadana magaalada wuxuu ka dhigay magaalo nadiif ah inta badanna wuu dilay dhalinyaradii tuugada ahayd qaarkoodna wuu eryaday oo wadanka uu ka saaray waa lagala cararaahday qaarkoodna waxa weeyaan xabsi ayuu u taxaabay ninkaasi waaye Ahmed Rashid waa nin qosla ma aha sida wajigiisa kaga muuqato waxa uu ku nool yahay dalkaasi Kenya xaafadda Islii waa ninka uu sheegay Sharmaboy in loo soo adeegsaday maxaa ka dhaxayn kara Daar Calisow mar uu tagay wadankaasi 2018 Kenya waxa la arkayay asaga iyo labadooda asagoo waardiyeynaya Daar Calisow waxaana loo maleynayaa inay saaxiibo hoose yihiin wayna dhici kartaa inuu u adeegsaday laakiin ma caddayn karno inuu u adeegsaday iyo in kale laakiin Sharmaboy waxaa ka muuqday in aad u fara badan iyo dhibaatooyin badan oo loo geystay waa Maxamed Alfa oo warbixintan idin soo koobaya salaamullaahi calaykum